بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا وناسن داود يا halkan oo warbaahinta xogta dalka ku soo dhawaada warka xogta dalka qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah xiisada doorashada Jubbaland oo ka sii dartay xilli waqtiga doorashada maamulkaasi la soo hormariyay warar dheeraad ah oo laga helay dagaal ku bilowday qarax midaamin oo ka dhacay gobolka Shabeellaha oo gaar ahaan degmada Owdhigle ee gobolkaasi ra'iisul wasaare Khayre oo la ogaaday in amarkiisa lagu sii daayay maxaabiis musuqmaasuq ugu xirnaa xabsiga dhexe ee Soomaaliya dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ku faantay in dhaawac halis gaarsiisay mid kamid ah hogaamiyaasha xarakada al-shabaab musharaxiinta u taagan gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir oo Tirabeele xilli musharaxiinta ugu badnaa is diiwaan galiyeen ergooyinkii ugu faraha badnaa oo ku sii qulqulaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug xilli shirkadda heshiisiinta dhawaan uu ka furmayo magaaladaasi iyo wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya oo beeniyay in kulankii Musabbixi looga hadlay arrimaha Soomaaliya iyo Somaliland qodobada dibadda aad ku daawan doontaan warka xogta dalkana waxa kamid ah Dr. Zek Neg oo xiisad cusub ka dhex abuuray dalka Malaysia iyo ciyaartoyda dawladda dalka India oo walaac ka muujiyay socdaal ay ku tagaan dalka Pakistan oo ciyaar ay kaga qayb galayaan markale daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkan waa xogta dalka haddii aad channelkan ku cusub tahay mogaan in aad saarto subscribe inaad like dhahdo share-na aad la wadaagto saaxiibada ku soo dhawaada qodobadii aad daawateen oo intii hore ka dhameystiran aynu ku bilownay faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal ku bilowday qarax midaamin oo ka dhacay gudaha gobolka Shabeellaha hoose faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal saacadii la soo dhaafay ka dhacay deegaan hoostiga gobolka Shabeellaha hoose gaar ahaan degmada Owdhigle ee gobolkaasi oo dhawaan al-shabaab ay kala wareegeen ciidamada xoogga dagaalka ayaa waxa ku dhex maray ciidamada militariga Soomaaliya gaar ahaan guutada 14 Oktoobar ee ururka 66aad huruntiisa saddexaad ee u qaabilsan sahanka iyo gaaf wareegga isla markaana u tababaran sida kumaandooska Soomaaliya militariga dawladda ayaa sheegay in ugu yaraan 17 dagaalamo oo ka tirsan al-shabaab ay ku dhinteen dagaalka wararkii ugu dambeeyay ka soo ifbaxaya ayaa sheegaya in guud ahaanba xarakada al-shabaab lagu gaarsiiyay jab xoogan iyadoo dawladdu ay ku faantay weerarka oo ku bilowday qarax midaamin ah ayaa waxa dagaalyahanada ka tirsan xarakada al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada dawladda ay ku leeyihiin gudaha degmadaasi qaraxa oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa ayaa waxa la sheegay inuu xigay dagaal foolka-fool oo dhexmaray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo ragii weerarka soo qaaday in ka badan 10 ruux ayaa ku geeriyootay qaraxaasi iyo dagaal ka xigay sida ay warbaahintu u xaqiijiyeen ilaa lagu kalsoonaan karo dadka dhintay waxa kamid ah Gacal Cabdulla oo haasa warqaado ka tirsan idaacadda codka ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya xaaladdu haatan way degan tahay iyadoo la soo warinayay saacadii la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyadii ugu xooggan ay ka soconayeen degmada Owdhigle ee gobolka Shabeellaha hoose dhanka kalena dawladda Soomaaliya ayaa ku faantay in dhaawac halis gaarsiisay ninkii ugu sarreeyay al-shabaab ee Cali Maxamuud Raaga Cali Dheere dhaawaca Cali Dheere waxay shaacisay dawladda Soomaaliya kadib qoraal ay soo dhigeen Sona idaacadda ayaa sidoo kale sheegtay in dhaawaca Cali Dheere uu yahay mid culus isla markaana lagu hayo deegaan hoos yimaada degmada Kuntuwaare ee gobolka Shabeellaha hoose ma jirto ilo madax bannaan oo xaqiijin karta sheegashada ciidamada qalabka sida dhaawaca Cali Dheere sidoo kale xarakada al-shabaab ayaa wili wax war ka soo saaran arrintaasi sida wararku ay sheegayaan al-shabaab ayaa ka war helay dagaal xoog leh oo loo adeegsaday hub culus iyagoo sida la sheegana galbinaya kolonyo gaadiida oo la socda fayeenka al-shabaab Sheekh Cali Dheere waxaana la sheegayaa in aysan al-shabaab ciidamada dawladda ku ogeyn deegaanka loogu soo qaaday weerarka oo haatan sida la sheegayo uu yaala dhaawac Cali Dheere si kastaba warar dheeraad ah ayaa marka ka dambaysa ka soo baxaya dhaawac Cali Dheere dhanka kalena ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa la ogaaday in amarkiisa lagu sii daayay maxaabiis musuqmaasuq ugu xirnaa dawladda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa amray in la sii daayay ilaa iyo 5 qof oo ku eedeysnaa musuqmaasuq iyo xatooyo xoolo dadweyne kuwaas oo toddobaadyadii la soo dhaafay ku jira xabsiga dhexe mas'uuliyiinta la sii daayay waxa ku jira madaxa canshuuraha qaadka ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Cabdimaalig Yuusuf iyo 4 qof oo kale oo la shaqeynayay dadkan ayaa toddobaadyo ka hor la xiray kadib markii lagu eedeeyay musuqmaasuq xoog leh oo la sheegay inay ka geysan canshuurta qaadka ee garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho muddadii ay xirnaayeen waxay markaa soo muuqdeen maxkamadda gobolka Banaadir laakiin ma jirin xukun maxkamadeed oo ku dhacay waxaana weli socda dooda eedeymahooda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dadkan qaarkood kula kulmay xafiiska isagoona ka dalbaday inay u hoggaansamaan amarada dawladda isla markaana aysan qalad u arkin muddadii ay xirnaayeen warbaahintu waxay ogaatay in ra'iisul wasaare Khayre uu raggan ku qanciyay in aysan dib ugu laaban xafiisyada ay markii hore joogeen oo ay ka warsugaan amaro kale oo soo bixi doona si gaar ah waxa la sheegay in ra'iisul wasaare Khayre uu kulan gaar ah la qaatay Cabdimaalig Yuusuf waxaana la sheegay inuu ku qancay in uusan bilaabin dagaal ka dhana xukuumadda maadaama idaacadiisa Shabeelle lagu yaqaano in ay barnaamijyo ka sameyso shaqooyinka dawladda Cabdimaalig ayaana ah milkiilaha guud ee idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho si kastaba ninkaasi ayaa haatan la sheegaya in eedeymaha loo haysto uu ugu
xiran yahay xabsi dhexe balse amarka ra'iisul wasaare Khayre la filayo in saacadaha soo aadan dib ugu helo xorriyadiisa. Hadaawanaysa saaxiibayaal warka warbaahinta xogta dalka qodobada Soomaalidana bartanka ayaan kaga jirnaa iminkana dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa heerkii ugu dambeeyay waxay maraysaa la tashiyada cidii loo magacaabi lahaa gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir xilli ay tirabeeleen dadka isku soo sharaxay inay noqdaan gudoomiyaha gobolka Banaadir. madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa heerkii ugu dambeeyay la tashiyada cidii loo magacaabi lahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa Muqdisho la leh wax garad siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. wararka waxay sheegayaan in la filayo in toddobaadkan dhamaadkiisa lagu dhawaaqo gudoomiyaha cusub ee musharaxiin dhowr ah ay dadaal ugu jiraan sidii ay u noqon lahaayeen. warar dheeraad ah iyo lagu kalsoonaan karana ayaa sheegaya in ilaa tan la filayo in 3 cisho gudahood madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku magacaabi doono dekreeto mas'uulka cusub ee qaban doona xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir. musharaxiin cusub ayaa ku soo biray kuwii hore waxaana musharaxiinta soo muuqda kamid ah wasiirka ganacsiga iyo warshadaha injineer Cabdullaahi Cali Xasan oo saacadihii ugu dambeeyay la hadalhayay inkastoo aysan muuqan ilaa hada oo la xoogan oo dhinaca wasiirka ka socda saacadii xarunta madaxtooyada aad looga hadalhayo. waxaa sidoo kale xubnaha loolanka soo galay isna kamid ah xildhibaan Cabdiqaadir Carabow iyo siyaasiga Cabdi Jiino. shakhsiyaadka horey loolanka ugu jiray waxaa kamid ah ambassador Umar Maxamed Cabdulle Umar Dhagey oo hadda ah la taliyaha dhinaca sharciga ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre horeyna u soo noqday gudoomiyihii guddiga doorashooyinka ee baarlamaanka xilligan. dhinaca kale waxaa la hadlayaa Axmed Maxamuud Washington oo hadda ah maareeyaha dekedda magaalada Muqdisho isagana rajadiisa in xilkan loo magacaabo waxaana la leeyahay aad ayuu ugu sareeyaa waxaana saaxiib dhow leeyahay madaxweyne Farmaajo. Washington ayaana waxa horey uga mid ahaa musharaxiinta gudoomiyaha gobolka Banaadir ka hor inta loo magacaabin injineer Yarisow Allah u naxariisto saata markii dambe loo magacaabay maareeyaha dekedda Muqdisho. waxaa sidoo kale musharaxiinta kamid ah agaasimaha gaadiidka Cali Gacan Gabow Umar Qaanso gudoomiyaha degmada Wadajir balse xilka laga qaaday. si kastaba dadkan oo idil ayaa midkood la filayaa in dabayaaqada toddobaadkan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ugu magacaabo duqa magaalada Muqdisho. waa taas saaxiibayaal dhanka kalena doorashada dowlad goboleedka Jubbaland xiisadeeda ayaa cirka isku sii shareer xilli ay waqtigeeda laga soo hormariyay doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi. wararkii ugu dambeeyay laga helay doorashada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in isbedel lagu sameeyay jadwalka doorashada madaxweynaha iyo midda guddoonka baarlamaanka ee maamulkaasi. warqad ka soo baxday guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa lagu sheegay in doorashada guddoonka baarlamaanka la qabanayo 17 bishan oo ku beegan Sabtida soo aadan. sidoo kale qoraalka waxaa lagu xusay in maanta oo 14 Agoosto ay bilaaban doonto diiwaangelinta musharaxiinta kadibna doorashada madaxweynaha ay dhici doonto 19 bishan oo ku beegan maalinimada Isniinta ee nagu soo fogan. doorashada ayaa ballanteedu ahayd inay dhacdo 24 bishan balse waxa hay'atan laga soo hormariyay waqtigeeda. arrintan ayaa ku soo aadaysay iyadoo wali qabqabsigii ugu xooggan oo ka dhex taagan yahay doorashada Jubbaland. taas waxa ay keentay musharaxiinta mucaaradka ay sameystaan guddi gaar ah iyo xildhibaano ka soo horjeeda kuwa uu magacaabay madaxweyne Madoobe. sidoo kale musharaxiinta badankood ayaan wali iska diiwaan galin guddiga doorashooyinka balse guddiga doorashooyinka ayaa wacad ku marayay in doorashada dowlad goboleedka Jubbaland ay ku dhici doonto waqtigeeda. wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya waxa uu guud ahaan beeniyay in kulankii uu la qaatay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi looga hadlay arrimaha Soomaaliya iyo Somaliland. wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga xukuumadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa faahfaahin ka bixiyay kulankii xajka kula qaateen wafdiga hogaaminaya madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Cawad waxa uu sheegay in kulankiisa aan looga hadlin wax siyaasad la xiriira amaba danaha labada dhinac. sidoo kale waxa uu sheegay in kulanku uu ahaa mid saaxiibtinimo oo walaalo dhex maray dhulka barakeysan ay ku wada hadleen. aad baan ugu riyaaqay wada sheekeynta saaxiibtinimo kaas oo aysan ku jirin wada xaajo siyaasadeed oo aan ku yeelanay waxyaabaha la ogyahay ay yiri wasiir Cawad. hadalkiisa oo intaas ku daray aniga iyo wasiirada ila socdaba wax fasax ma aanan ka haysan dowladda Soomaaliya sida daraadeed marnaba awood ma lahayn inaan ka hadalno arrimaha Soomaaliya iyo Somaliland. kulanka dhexmaray madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad iyo wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxaa si weyn looga hadlayay baraha bulshada saacadii la soo dhaafay. walow guud ahaanba wasiirka arrimaha dibadda uu meesha ka saaray in looga hadlay arrimaha Soomaaliya iyo Somaliland ku qotoma kulanka dhexmaray Muuse Biixi iyo wasiirada ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Soomaaliya iyo Somaliland ayaana waxa ka dhex aloosan dagaal xooggan oo maamulka Somaliland uu ku doonayo in caalamku uu ictiraaf siiyo isla markaana lagu aqoonsado dowlad madax bannaan xilli dowladda Soomaaliya arrimahaas ay ka hor imaanayso. saaxiibayaal waxaad daawanaysaan warka warbaahinta xogta dalka qodobada Soomaalida kan ugu dambeeyana ergooyinkii ugu faraha badnaa ayaa ku sii qulqulaya magaalada Dhuusamareeb oo taalla gogasha dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Galmudug. xubnaha guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta beelaha Galmudug oo ku jira diyaar garowgii ugu dambeeyay ee kamara dhalinta gogasha nabadeed ee laga fidiyay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa
ay booqasho ugu tageen wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabri iyo madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan kulanka oo ka dhacay xarunta ay guddigu ku shaqeeyaan ayaa looga hadlay soo dhaweynta ergada amniga magaalada iyo sidoo kale furitaanka shirweynaha gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta ninka lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyo oo ka warbixiyay shirka ayaa wuxuu ku amaanay madaxweynaha ku-xigeenka waxa uu ku amaanay ra'iisul wasaare Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo wasiirka arrimaha gudaha howlaha ay wadaan Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo ayaa shaaciyay in beelaha guud ahaanba ay ogolaadeen intooda badan balse qaar yar ay jiraan oo tabashooyin qaba shirkuna waqtigiisa 17 Agoosto uu furmayo wargooyinka ugu faraha badnaa ayaa iska xaadiriyay magaalada Dhuusamareeb si ay uga qayb galaan shirkaas oo la filayo maalinta Sabtida soo aadan oo ka daafurma magaaladaasi qodobada dibadda aad ku daawan doontaan saaxiib warka xogta dalkana hadii aynu markan u jaleecno ciyaartooy ka socota dowladda dalkaas India ayaa waxay walaac ka muujiyeen tagista dalka Pakistan oo ciyaar ay kaga qayb galayaan tartanka cricketka wadamada dhaca qaaradda Aasiya ayaa waxa uu ka dhacayaa gudaha dalkaasi Pakistan asaate ciyaartooyda matalaysa kooxda wadanka dalkaasi India ayaa walaac ka muujiyay dowladda dhuleedka uu kala dhaxeeyo ee Pakistan inay u tagaan inay ka qayb galaan ciyaarahaasi waxa ay sheegeen inay cabsi ka qabaan in halkaasi lagu soo gaarsiiyo dhibaatooyin kala duwan iyagoo muujinaya in dowladda dalkooda uga baahan yihiin magangeliyo dowladaha Pakistan iyo India ayaa dagaal xooggan u dhexmartan iyo markii muran uu ka dhashay dhulka la isku haysto ee gobolka Kashmir qodobka ugu dambeeyana ninka lagu magacaabo Dr. Zeid Nego oo ah sheekh caan ka ah wadamada caalamka ayaa waxa uu xiisad cusub ka dhex abuuray dalka Malaysia golaha wasiirada Malaysia ayaa ka wada hadlay waxa laga yeelayo deganaanshaha joogtada ah ee dalkaas uu ka leeyahay sheekha u dhashay dalka India ee Zakir Naik ayada oo 3 wasiir ay dalbadeen in dalka laga ceeriyo sabab la xiriira eedeymo ku saabsan inuu jeediyo hadallo jinsiyad xasaasi ah Sheekh Zakir Naik oo Malaysia ku noolaa 3 sano ee tagay ayaa dalka India ku wajahay dacwad la xiriira been xalaaleyn lacageed iyo sidoo kale in uu jeediyo hadallo nacayb waxa uu dhawaan jeediyay hadal aad loogu dhaleeceeyay Malaysia ah in dadka Hinduuska ah ee ku nool dalkaasi ku yaala koonfurta bari Aasiya 100 mar xuquuq ka badan yihiin muslimiinta laga tirada badan yahay dalkaasi India gudaana qodobkaasi dibadda waxa uu dambeeyay war wixii dalkii dibadda naga soo garaad ka daawanaysan xogta dalka waad ku maasantiin daawashadiina hadii aad channelkan ku cusubtahay mugaan inaad saarto subscribe inaad like dhado share aad la wadaagto saaxiibada warkan kiisa xiga saaxiibayaal nabadgeliyo